kulan wacan saaxiibayaal kuna soo dhawaada taariikhda fanaanada Sahra Axmed Jaamac oo lagu naanaysan jiray quruxda fanka Soomaalida. Halka aad ka daawanaysaan waa Cabshirbaani Channel. Jimco wanaagsan ayaa idin leenahay saaxiibayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Sahra Axmed Jaamac waxay ku dhalatay gobolka Togdheer waxayna ku sababartay magaalada Hargeysa. Fanku waxay ku soo biirtay 1969 iyadoo ay 13 sano jir ah. Waxaa la fahamsan yahay inay tahay gabadha ugu heesaha badan hablaha ku jira fanka Soomaalida. Maxamed Nuur Gariig ayaa fanaankii ugu horeeyay ee la heesto waxayna wada qaadeen heestii wacad iyo tii labaad ee Maahiya Qadraay. dadna ruux ku aaminay iyo wacad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacad ilaahay midna lama ilaawe hahalay min aayaa xasan aadan samatar ayaa ah fanaanka ugu badan ee hees wada qaadeen Sahra Axmed Jaamac. diina roorsaday ugubkii u taniyo madhiir la diisaday sabdi dhexina roobelay subaxii bariisana ididan jaleecada saxansaxa udgoon badan tanka kuula ثم البديد لغو شوي ويصبع ضعيلكيو وغدو كهي أكتيسو أبوان أحمد سليمان بدي أيا عليه هيستو هريسي قادة سهرة أحمد جامع وحنا لحن كسهرة محمد آدم ضعر. سهرة أحمد waxay kasoo muuqatay inta badan riwaayadii ugu caansan fanka Soomaalida sida Waraqeyshin Biro Warisku Mahayaan Jeel iyo Jacayl iyo kuwo kale oo badan. heesaha ugu badan ee Sahra Axmed qaado waxaa culiyay abwaaniinta kale ah Abwaan Axmed Saleemaan Bide, Cabdiqays Maxamed Nuur Huuriye fanaaniinta ugu caansan geeyiga Soomaalida sida Xasan Samatar iyo Maxamed Nuur Gariig iyo kuwo kale oo badan. Allah u naxariistay Sahra Axmed Jaamac waxay geeriyootay 4 Abriil 2018 waxayna afka kaga tagtay 11 caruur ah waana fanaanad ku go'ay doonan qalbiga qof walba oo Soomaaliyeed.
شاي